xilligan aynu ku jirno saddex baa mudan in laga feejignaado xogtay sheegayaan waayo waxaynu galnay xilli xogta laga ganacsado informationka waxaa loo yaqaanaa xogta laga ganacsado loo isticmaalo dadka in la isku diro dadka in lagu kala qaybiyo dadka in lagu dhaawaco midnimadooda iyo sahaanshahooda saddexdaas maxay yihiin waa koow kooxda ay koox kale is hayaan cid ay cid kale is hayaan labada koox dhinaciis haya ma dagaal ka dhaxeeyo ama arrin xasaasi ah isku haystaan waxay adeegsadaan propaganda fara badan oo ay doonayaan dadka inay kaga dhaadhiciyaan isku xayisiiyaan cidda labaadna waa maxay kooxda labaadna waa maxay waa dadka ka ganacsada xogaha baraha bulshada aad ugu badan yihiin wax isticmaalaan xoga been abuura ama fake news si ay dadka u helaan dad badan oo daawada lacagna uga sameeyaan waxa soo raaca oo saddexaada qof la isticmaalayo oo baahiyo xog loo soo dhiibay xog loo sheego oo ama aanu ka fiirsan ama loogu talagalay inuu baahiyo qofkani isagu waxa weeyaan waa jidkii xogtu sii maraysay marka cidaan jecelayn bulshada hor timaado la barto ayaa ciddaa isticmaasha bulshadeennuna waxay u nugushahay xogo badan oo soo gaari dad badan inay khalkhal ka qaadeen ku wareereen marka dad badan way ogyihiin laakiin xusuusin bay iga tahay marka saddexdaa fiiro gaar ah loo yeesho waayo adduunka imika waxa saamayn ku yeeshay oo cid walba ka qaylinaysa waxa loo yaqaano fake news wararka been abuurka xogaha been abuurka ah ee dadka isku dira waqtigu eer saraydana ado waa cabshkuul xusuud ku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh